madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markii uu soo gaaray duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. mudane madaxweyne waxa salaan sharaftaada u diyaar cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sanaag ku soo dhaw mudane. dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag ayaa muujiyay taageerada xooggan ee ay u hayaan madaxweynahoodii oo socdaal shaqo gobolkoodii ugu yimi. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceerigaabo dadweyne aad u tiro badan ayaa shaariciyada magaalada ku soo bandhigay sida ay ula dhacsan yihiin hogaaminta xukuumadda talada haysa ee qarankan garwadeenka ka ah. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wadada weyn ee halbowlaha u ah magaalada Ceerigaabo la lugeeyay dadweyne aad u tiro badan oo soo dhaweyntiisa iskugu soo baxay ilaa iyo madaxweynuhu waxa uu ku gaadhay fagaaraha khayryada magaalada Ceerigaabo oo dadweyne aad u tiro badan ay soo dhoomeen. gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro maayirka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur salaadiin garaado cuqaal aqoonyahan dhalinyaro iyo waxgaradka gobolka Sanaag waxa iska daba mareen sida shacbiga gobolkan ay uga midaysan yihiin horumarinta gobolkooda iyo horumarinta qarankoodaba. madaxweyne gobolka khayraadka waleenka iyo xabagta beeraha iyo xoolaha badda iyo bannaanka buuraha macdanta iyo dahabka mudane madaxweyne waa gobolka aqna weeye. kor iyo hoosba waynu isu warwareysanaynaa madaxweynaha waynu la kulkulmi doonnaa wax badan baynu u sheegi doonnaa wax badanna waynu u sheegan doonnaa wax badanna waynu ka sheegan doonnaa intaba diyaar baa laynoola yahay. waxaan idin leeyahay qacmo furan af qoslaya ku soo dhowo madaxweyne. in laysu dheeli tiro horumarka gobollada ayaanu codsanaynaa waana kugu soo dhawaynaynaa. waxaanu leenahay nabadgelyo iyo farxad ku soo dhowow. mudane madaxweyne wax nabadgelyo darro la yidhaahdo halka ka jira ma jiraan taa annagaa kuu xaqiijinay. haddii lagula rag baa wax wadaada waxba kama jiraan. ku soo dhowow gobolka Sanaag. shaqaaqada ceelaf weyna gacanta lagu hayaa horaa loo dhameeyey inta hadhayna hadda la israacinayaayo meel fiican bay maraysaa madaxweyne. wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha boos mire maxamed xanaanada xoolaha xasan maxamed cali gaafaadhe gaashaandhigga ciise axmed yuusuf horumarinta biyaha salebaan yuusuf cali koore ayaa iska daba maray sida shacbiga gobolkani ay u garab taagan yihiin xukuumadda talada haysa maantana ay u muujiyeen sida ay u midaysan yihiin. dadka shaqada ka dhigtay eergaaba caynkaas iyo eergaaba caynkaas iyo eergaaba madaxweynaha lagama ogolaa. eergaaba madaxweynaha laga ogolyahay inay naba tahay way muuqataa maanta waa ismuujisay. madaxweynahooduna intuu dhex lugaynaya waa arkaysaan. waxaan isleeyahay eergaaba ayaa wanka gashay taas waa qiraal cidina isweydiin mayso. waxaan leeyahay madaxweyne halkani waxay u baahan tahay wixii xaalxaal ay tabayso in layskaba raaciyo oo maxaan ku dhahdaa lala riixo maahaane maanta dee ishaa kuu markhaatiya caalamkuna wuu arkaa ninkii wax kale ka fahamsanaana maanta waxaan u malaynayaa waa cusub oo kale ayaa u muuqda. waxaan leeyahay madaxweyne ku soo dhowow. waxaan kaga ambabaxayaa waxaa idinka muuqdaa shacni iyo wanaag iyo sharaf waxaanu idinkaga wargeynaynaa. laakiin anigu waxaan odhanayaa waa A plus waxa weeye kowda way ka sarraysaa Ceerigaabo aad iyo aad bay uga sarraysaa. haddii aan ku daro waxaan isleeyahay laascaanood baa number 2 ahay. inamada yaryar ee taraaglayda ah ee North America iyo Yurub jooga ee markay wadooyinka dhaadheer maraya facebookyada soo gala war wax miyaynu ka dhagaysanaa wallaanay dar inoogu hayn wallaanay u ogeyn waxa halka jega. midnimada Soomaaliland iyo isdubnida shacabka waa lama su'aalaan anaa joogaha waxaan u malaynayaa hadalladeeda waad maqasheen war Soomaalidu ma maqlin waxa la hayaa waa khiyaali
war waxaa igu horreeyey maalintan ka soo degay 26 December sanadkiina soo dhafa 2017 maalintaasaa xaqiiqada iyo waxa ka jira Somaliland iyo wanaagga iyo isku duubnida iyo maxaa ku idhaahdayay qarannimadu intay taaba leeg tahay indhahaygu ku dhaceen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahad celiyay shacbiga reer Ceerigaabo ee sida milgaha iyo maamuuska madaxtinimo leh ugu qaabilay gobolka Sanaag oo Ceerigaabo waxaan hore loo arag ama soo baxaan hore loo arag oo kalgacal iyo xiise iyo xamaasad wata oo aan sheekh iyo ciroole iyo caruur iyo rag iyo haween aan u kala harin oo madaxdoodii hogaaminayaan walaalayaal farxadda iyo rayraynta iyo kalgacanka aanu tusteen aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa soo baxani wuxuu muujinayaa soo baxani wuxuu sheegayaa dadka Sanaag ku nool iyo maanta dadka Ceerigaabo gudaheeda degani qarannimaday soo dhaweynayaan waxay muujinaysaa kalgacaylka u qabtaan qarankiina waxaad muujiseen walaalnimada u haysaan qarankiina iyo dadkiina iyo dalkiina oo dhan fariintaana qaranka Somaliland oo dhan way ka farxinaysaa cadawga Somaliland way ka nixinaysaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka waramay sida ay Somaliland iskugu tashatay una dhisatay dawlad dhameystiran iyadoo tixgelinaysa darisnimada iyo wadajirka dalalka Somaliland jaarka la ah Somaliland 27 sano dhisnay ciidamada ajnabi uma iman ciid mushahar ma siinin dawladeeda ciidankeeda ciid mushahar ma siinin madax dhaqameedka kolba magaalo loogu yeeray Soomaaliya iyo magaalo ajnabi ee madax dhaqameedkeedu iyaga Sanaag ka bilaabay shirkii u horeeyay ee nabadaynta ee Somaliland ee 1992 halkana laga bilaabay ka unkatay ilaa iyo booramo u socday shirkaas laakiin Somaliland mid bay dood ka qabtaa wada aqbalay waxa weey gurigeyga gubanaya ee igu kaale oo ila gubo haddii kala kaaga aan kula gubo oo iga tagi mayso dadka laga soo fujiidanaya warda aqli ma aha Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa fariin u diray cid kasta oo isku dayda faragelinta qarannimada iyo gooniisutaaga jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay hadaan Somaliland nahay wartan way dhisantay oo wax badan bay qabsatay oo gudaheedii bay hagaajisay oo inta ka dibna way hagaajinaysaa qolada Talyaaniga weysan jiray koonfur waxaan leenahay war walaalayaal annagiina na dhibtay oo maalin walba qas iyo waxaad la joogtaa dhibaato annagu waxaan wadaa nabad iyo wanaag oo waxaan doonaynaa inaan wadaaggeedii soo fidino idinkuna aad dabka iyo sharka naga haysaan wanaag baanu doonaynaa qofkii shar wada waxa la sharkaaga naga daa hadduu sharka naga daa waa iska qabanaynaa kaliya Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid TV-ga qaranka jamhuuriyadda Somaliland magaalada Ceerigaabo